soo dhaweynta wasiirka cusub ee deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada Puntland waxaa qayb ka ah xubno ka socday golaha wasiirada Puntland xildhibaano xubno ka tirsan bulshada rayidka ee Puntland iyo boqolaal ka mid ah bulshada Garowe wasiir ku-xigeenka deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada Puntland Senator Zainab Ismaaciil Timbiye ayaa u soo jeedisay wasiirka cusub kelmado soo dhaweyn iyo dardaaran wada jira wasiir soo dhawow waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha dawladda Puntland wasaaraddan oo ah wadnaha dadka wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada oo ah arrin aad muhiim ugu ah dalka iyo dadka dantooda waxaan madaxweynaha uga mahadnaqaynaa inuu u doortay wasiir dhalinyaro ah energy haya xirfadeeda leh oo soo bartay aad baan madaxweynaha uga mahadnaqaynaa waxaan rajaynaynaa in wasiirku uu dardar gelin doono muuqaalka iyo shaqada wasaaradda wasiirka cusub ee deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada Puntland mudane Axmed Yuusuf Qahar ayaa ka mahad celiyay soo dhaweynta ballaaran ee loo sameeyay kana codsaday saaxiibada wasaaradda wada shaqayn iyo garab qabasho shaqo wada jira waxaan leeyahay waa mahadsantihiin intaasna waa idinka qabaa waana dhowahay waxaan rajaynayaa kolley soo dhaweynta la soo dhaweeyay nin qurba joogoo diaspora dibad ka yimi maahiye bil aan maqnaa iyo wareegtada soo baxday baa isku beegantay nin dalka iyo deegaanka war u haya baan ahay nin deegaanka joogay baan ahay nin aan meel uga bixin baan ahay waxaan rajaynayaa sida sharafta leh iyo karaamada leh oo maanta hanaankeeda laygu soo dhaweeyay inaan wasaaradda dhaqaajinteena haddii lahayd iyo dardargelinteedana laygu garab istaagi doono kolley waa iswada waraysan doonaa hadduu ilaahay idmo mar haddaan isu nimi kala daalimayno shaqaalaha iyo wasaaraddaba waa wada joognaa hadduu ilaahay idmo dhammaantiin waa idin mahad celinayaa Yuusuf Maxamed Maxamuud warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Garowe